أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga qaaliga ah dhammaan meel kasoo dunida ka joogtaan waa idin salaamo waa mar kale iyo walaashin filsankaahi soo dhawaada insha Allah taala biidhnillaahi kariiman. maanta waxaan rabaa haduu ilaahay idin inaad la qaybsado qiso yar oo maasha Allah aad iyo aad maaragtay iiga yaabisay haduu ilaahay idmo nafsada inaan aad mood inay wax un ka bedeli doonto insha Allah qof kasto iimaan leh maalinta aakhirana rumaysan iyo xisaabta inay ka dambayso maasha Allah. adiga dhowr cisho ka hor waxay soo gaartay qisadaas rabaa haduu ilaahay inaad la qaybsado qisadii marka waqti aan waayay inaan soo dhigo YouTube-kayga laakiin group-yadan ku qaybiyay WhatsApp-ka maasha Allah. hadda marka waxaan jeclaystay in idinka idin la qaybsado reer YouTube maasha Allah page-kayga ku xiran ilaahay dhamaanteen hana wada barakeeyo. waxay ahayd maamana la qaybsatay waxay tiri waxa uga sheekeynaysa maamada macallimadeeda quraanka maasha Allah. waxay tiri qiso hadda kor aan la kulmo ku sheegaya ka waxay dhahday maama dirisna la ahayd ciyaal leh qol barsada naga deganay Soomaaliya waa aragteen qol la wada degan yahay. waxay tiri qol barsada naga deganeed maamada waxay dhahday ma soo baxdo gurigeeda cuntada ku karsataa gurigeeda dhar ku dhaqataa gurigeeda everything ku samaysataa banaanka ma soo istaagto. marka waan yaabay tiri maamada waxa ka sheekeynaysa maamada macallimada quraanka aheeda ka sheekeynaysa qisada waa yaabay dhahday. marka waxaan is dhahday maxaa ku dhacay talo gabadhan maalinta dambe u galay dhahday waxaan iri tiri abaayo maxaa ka sameeyay maxaa naga tabanaysaa maxaa noo banaanka dirisaan macna maxaa iska keen xirxiri camal. marka maamada waxay tiri dhahday waqti meeysa aan ku sheekay qisada igu dhacday macnaha waxaan isku xirxiraayo oo halkan igu ururiyaan kaaga sheekeyna waqti meeysa haay dhahday fariisay dhahday maamada marka waxay uga sheekeysay qiso ku dhacday ayada sababta keentay in halkan gurigeeda ku ekaato. ka waxay dhahday waxaan markaan barigan dhalinyarada ahaayay tiri ilmaha teenager-ka marka dhalinyarada la yahay waa la yaqaan. marka waxay dhahday anagoo koox aan waxaan sameyn jirnay dhahday diriska waan dhibi jirnay macnaha cusbooyinkooda ka soo gadisan jirnay cuntooyinkooda waan ka qaadan jirnay ayagoo noo fasaxina mar la'aan. waxay tiri basaska markaan raacno kala lacagta waan ku inkiri jirnay waan idin siiyay lacagta waan idin siiyay anagoo aniga gabdhihii dhahday ka wax badan aan sameeyay jiray waxyaabo badan oo Ilaahay ka xaraantinay wax alle wixii aan rabnaa sameyn jirnay dhahday gabdhahaas aniga. waxay tiri macalina sheeqa waxay tiri halnooda guriga la deganaa markaas oo dhigi jiray tiri ma salaada dukatiin Ilaahay ka cabsada kaas gabdhaha kale waxay dhigi jireen tiri Ilaaha nagu leh ka aan waxaan dhigi jiray insha Allah waa dukaneena. odagaygan waxay tiri askari ah laakiin anaga camal oo ahay macnaha qof oo anaga kala oo waxa aan sameeyno kala sameeynayo bas xaalad ayada aniga ku jiray tiri waxay tiri uuraan yeeshtay ninka waxay tiri waa la guursaday yarkay guursaday askariga waxay tiri uuraan yeeshtay uur markaan yeeshtay dhahday gabaraan dhalay gabadha markaan dhalay dhahday umush markaan ka baxay dhahday xanuun darna igu dhacay dhahday xanuunkaas oo la miir daboolmay. marka waxay dhahday waxaan ku riyooday tiri marka way miir daboolanta marka ayada almost waa koomo camal. marka waxay dhahday waxaan ku riyooday tiri anigoo dhintay oo la aasaayo marka waxay dhahday qabriga la geeyay ninkeygii dadkii way iga soo tageen tiri iga soo yaaceen markii la aasay waxay ugu haray tiri ninkeygii walaashay waxay u tiri heblaaye cafi gacanta midigta soo taag waa cafiya camal oo dhahday ka walaashay waxay tiri waxa uu iska tagay tiri marka walaashay waxay u ekeeday tiri ii sheeg qof oo xoogay madluunsan oo ii duceynaysa camal ayadana way iga tagtay tiri waxay kadib teesaan u salaaxday macna qabrigeyga camal. waxay dhahday markii la iga dhaqaaqay waxa ii timid tiri laba nin oo fool xumo badan oo nolosheeda aragtay wax ku fool xumo ah oo badwato
سؤال ويدياني ترى سؤال شو اسمه كان أودي واي أقوم واي ما ذحي وحي ترى برس إيجا دفتان دول كان قلاه ترى هذا دول كوي صوت فا وحي ترى هذا والله يقول دفتا سؤال شو مركي اللي ويديون قرن واي وحي ترى دول كان قلا هذا وحي ترى دول كوي صوت فا سيدي إيه عذابين مركي دنبوالي كحيت jidka waxay tiri markaan sii socdo waxaa la sii mariyay tiri laba nin oo maaragtay calool waaweyn oo gacmihi yariisa leh iskini gacmoodiyeen marka qalada ka maxay ahaayeen oo dadka ribada cunaa la soco meel la ii wadaad xaligii tiri meel aad moodo laba gaari oo carra in lagu rogay xaligii tiri carradan daldal wala ma daldali karo daldal umada xoolahooda markaa banaysanaysa maxaa mooday daldal tiri meeshii waxaan ku rafaado oo waxay tiri oo meeshii la igu cadaabo alla soo kaxay tiradan waxay dhahday waxa la ii kaxay tiri gaari meel u yaalo waxa lagu yiri tiri gaarigan qaad alla ma qaadi kari markaan qaadi karo dhawaan la tumaytiro la cadaaba qaad gaariga markaad xoolihiisa banaysanayso been sheegayso waan dhiibo lahayd adiga macnaheedu waxay sameeysaa lagu imtixaama sidii ay tiradan waa soo dhaqaaqay dhahday waa la soo kaxeeyay xal igi tiri eedaday maamo eedaday oo dhimatay bari hore oo meel fiican fadhido miis qurux badan laba koob aad qurux badan oo quruxdood aad yaabaysid oo midna qaxwo ku jirto midna biyo ku jiraan eedadii meesha fadhida la ii geeyay alla eedoy waa haraadsan waa rafaadsanahay silacay eed biyaha isiib adna ma lagu keenay igu tiriida ha eed biyaha isiib markaas igu tiri wax kan waa soo dhiibtay soo dhiib amal wala kaxay dhahda waxa la marsiyay tiri guur aad qurux badan oo dunyada ku oolay tiri عادنا لو سميت عاد مودة gold معناها ذهب iyo waxaas laga sameeyay aad moodo dadku way galayaan ani ma gali kariyo dhaxal dadku way galayaan ani ma gali karo waxaan dhahay tiri alla ma gala soo bax adama lagu tala galin soco alay u dhahay dhaxal waalay ka dhaxal bas waxay dhahaday sidii la ii waday hadana waxay tiri waxa la geeyay kuwa oo god oo holc ka baxay qaylka yeeris oo dadka lagu cadaabayo godka waxay tiri igu riday labada lugood laga qabtay qayladeeda baxday dhahday cabaadkayga baxay dhahday waxay dhahday waxaan qayliyo dhahday waa laga soo saaray sacaalay ugu dhahday waxaa tiri waxaa la igeeyay dhahday maybe inaan wax kale ilaabo haddaan wax ilaabo waxay tiri waxaa la igeeyay dhahday guri madow oo fool xumo badan urka kasoo baxa aad yaabtid oo laba meelood oo kore ka duleelo bis kiya inta galanta lagu yiri lagu xiray tiri meeshas waxay tiri mugdiga urka fool xumada aad yaabis tiri meesha waxa ka soo yeerisay tiri khaylo igugxan marka waxay tiri wadnaha la idaafa macnaha aniga dhanbo waa xanuunsanahay dhaado subhanallah sida waxay tiri iigu cadaabay aliga soo baxshay tiri guriga hadana waa la soo kaxeeyay tiri markii la soo kaxeeyay waxay tiri waxaa la igeeyay tiri guri qurxan oo guriyaha adduunka ka qurxan laakiin kuwan soo arkay aan gaarin oo macnaha oo iska qurxan laakiin kii adduunka ka qurxan inta lagu yiri tiri guriga marka guriga waxay tiri gala lagu tiri inta gurigan galay tiri meesha sartan digdha waa daalanahay tiri waa oomanahay waa rafaadka adduunka ay haystay meeshaan dhacay tiri hurdo waxay tiri aan noloshayda hor u hurdin ilaa hadda waqti xaadirkan ay tiri qisada aan ka sheekana aan wali hurdin aan hurday dhahday macaan badan aan bilq dhahday sidii aniga u jiifay tiri
guriga qolka igu dhigana waxay tiri wiil oo waxay tiri waalid u tahay oo maaragtay sheekoomo ka shaqeynay cashir ka shaqeynay waxay dhahday maamada intuu cashirada soo shaqeynay shumac oo shitay hurdaa qabatay shumciya marka dhalaal buugaagtii oo qabsaday iyo maradii miiska saaran wixii way isla holceen marka aad cunugiya marka soo kaca holci ku soo kacay qayladii Allah dabka hala damay marka dadka dhan soo kaceen qayladii sawaxankii ay gabadhan soo kacday qayladii ku soo kacday maxaa dhacay guriga runta loo celshay marka way soo kacday dadka dhan wixii uma muuqdaan gabadhii la yaabeen Allah iblaayaa soo kacday way soo naxday markaas tir maxaa dhacay kaas la horta adima nabad qabtaa hal bil oo kaamil ah aan ku wareejinayna isbitaalada oo meel kasta ku geynay oo dhakhtar kasta ka qoostay halkaan iska soo ka dhignay waxaan is dhahnay inta ka dhimanayso suuq adoo nolol ku duuweyn hal bil oo kaamil ay kooma ku jirto aydan rufaadkaas isla casii soo mareys gabadhi waxay ka sheekaysaa marka wixii intay koomada ku jirto ku dhacay waxay tiri horta marka ninkeyga saas warkay u dhageystay tir carar musqusho kale oo soo qubaystay tir soo daayiri salaada hore ka bilaab ana waxay tiri musqush igey salaadeedaan bilaab marka waxay tiri walaalay gabadhii uu sheekad u wada macallimada quraanka walaalay waxay tiri inaan maanta laga bilaabo afkaygaas iyo indhahaygaas idimankayga aan ka adkaado aan go'aansaday oo wax dambe iyo dambe aan gelin ka rafaadka adduunka soo martay subhanallah wallahi adduunka lagu tusiyay oo qof ilaahay u bishaareeyay aakhiro waxa yaala la soo tusiyay waa la soo amal tusay waa la soo celiyay jaanis labaad ay heshay ma sha Allah qofku ilaahay ka raali noqdo jaanis labaad helo jaaniskiisana ka faa'iideysto marka ilaahay subhanahu wa ta'ala boqorka waxaan weydiisanaynaa horta jaanisadeena inuu ilaahay badiyo ilaahayna inuu nafidnaynin walaalayaal oo marka qisadan waa qiso dhab ah maamo Soomaaliyeed ku dhacday maamadana la qaybsatay anaga waxay ila qaybsatay adiga dhowr cisho ka hor nala qaybsatay ana kaligeega ii sheegin groupkeena ku soo dirtay laakiin waan shafaafiyo oo WhatsApp-yadan ku diray si ummadda ugu cibro qaadato page-kana idina inaan ka soo hadlo marka khayr iyo baraka insha Allah ta'ala bidnillahi kariiman waxaan idinkaga tagayaa khayr aan dhamaan insha Allah qisooyinkeena noo baaqdane waa mar dambe insha Allah ta'ala bidnillahi kariiman aan noo soo dhigi doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh